asxaabta aad baan idin salaamayaa. Channelkan oo la yidhaahdo Talo Dhakhtar waa channel cusub oo aynu kaga hadli doono arrimaha caafimaadka iyo talooyin ku saabsan arrimaha caafimaadka. Markaa noo subscribe gareeya idinkuna si aad uga faa'iidaan talooyin ballaaran oo ku saabsan arrimaha caafimaadka. Waxaan ka hadli doonaa su-aal muhiim ah oo ah cidiyuhu ma inoo sheegi karaan xanuun ka jira jidhka intiisa kale, ama cididaadu ma kuu sheegi kartaa xanuun ka jira jidhka intiisa kale? Jawaabtu waa haayo. Jidhka bini'aadamku waa mid si walba isugu xidhan. Haddii ciladi soo gaadho qaybo ka mid ah jidhkaaga laga dareemayo jidhka intiisa kale, ama haddii ciladi soo gaadho cididaada laga dareemayo jidhka intiisa kale. Halkan waxaan ku eegi doonaa calaamado lagu arko cidiyaha oo kuu sheegi kara dhibaato ka jirta jidhkaaga. Cidida oo casaan noqota ayaa u horeysa qodobada aynu ka hadli doono. Waxaa loo yaqaanaa red nail. Waxyaaba badan baa keeni kara, laakiin waa xaalad tilmaamaysa in ciladi ka jirto inta badan wadnaha, ama ay jirto xanuuno difaaca jidhka oo weerara isla jidhkeena sida xanuunada la dhaho lupus oo ku badan dumarka. Cidida oo bulug noqota oo blue nail loo yaqaano waa xaalad tilmaamaysa in qofku ku jiro hawo la-aan ama oxygen la-aan. Waxaana loo yaqaanaa ciladan hypoxia. Waxaana inta badan keena xanuuno ku dhaca inta badan habdhiska hawo-mareenka iyo wadnaha. Xaalada kale waxaa loo yaqaanaa yellow nail. Waa cidida oo huruud noqota. Waxay tilmaamaysaa inuu hayo qofka xanuun uu keeno fangaska ku dhaca cidiyaha. Inkastoo xanuuno kalena ay keeni karaan, laakiin waxaa u badan xanuunada fangaska ku dhaca cidida. Cidida oo u ekaata qaabka malqacada ama spoon shaped nail loo yaqaano inta badan loo arko, sababtoo ah waa xaalad ku badan dadka nooc ka mid a dhiig yaraanta ayaana keena. Cidida oo khafiif noqota oo loo yaqaano brittle nail waxaa lagu gartaa cidida oo si fudud jabta iyo dilaac inay yeelato, waxaana keena nafaqo darro gaar ahaan fitamiin la-aanta. Cidida oo tuur yeelata oo loo yaqaano clubbing finger waa xaalad ka iman karta dhowr meelood, waxaana ka iman kartaa wadnaha haddii xanuun ka jiro. Sidoo kale habdhisyada dheefshiidka iyo neefsiga waa xaalad ka khatar badan marka loo eego kuwa kale. Cidida uu ku samaysmo line madow oo qotoma oo loo yaqaano dark vertical line ama linear melanchia. Dad badan way iska indhatiraan calaamadan sababtoo ah wax xanuuna kuma hayso. Xaaladaha qaar waxay keeni kartaa ama u ekaan kartaa oo keeni kartaa kansar nooc loo yaqaano subungual melanoma oo ku dhaca cidida. Daaweyntooduna dhammaan waxay ku xidhan tahay waxa keena isbedelka cididan ku dhacday. Marka in qofku ka warhayo weeyaan cidiyihiisa. Haddii isbedel uu ku arkay inuu booqdo xarun isbitaal si loola socdo ama loo ogaado dhibta jirta loona daweeyo. Aad baad mahadsantihiin.